الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaa la isweydiinayaa ummadaha waxaa hadda lagu kala saarayaa ummaddan waa sabool ummaddaanina waa hodan islaamka maxay tahay sababaha ugu weyn oo keenaya saboolnimada iyo faqriga bulshooyinka ku faafa ama bulshooyinka haysta aragtida islaamka marka aan u noqono laba sababood ayaa ugu weyn oo keena faqriga iyo saboolnimada iyo wax la-aanta ummadaha qaarkood ay la daala dhacayaan adduunka in badanina sida uu ku jiro uu la daala dhacayo sababta koowaad waxa weeye inaan laga faa'iidaysan ama ummaddaas ama shacabkaas ama bulshadaas ama dadkaasu ayan ka faa'iidaysan ama ka shaqaysan khayraadka dabiiciga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhulka ugu beeray ee ilaahay dhulka uu ku siiyey ilaahay subxaana bani aadamka markii dhulkan uu dejiyey saboolnimo kuma dejine ilaahay dhulka waa u buuxiyey waa u camiray badda iyo beriga iyo buuraha meel walba xoolo iyo kalluun iyo khayraad badda ku jira iyo shaqo iyo beriga beero iyo webiyo iyo macaadin iyo khayraad ku jira buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bani aadamka siiyey wasakhara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlardi jamiica minhu dhammaan wa huwa aladii sakhara albaxra lita'kuluu minhu laxman طariya ilaahay yunbitu lakum bihi zarca wالzaytuna wالnakhiila wالrumaana wاlacnaab wa min kuli thamaraat ilaahay marka khayraadkaas dabiiciga ah ee uu dhulka geliyey inaan laga shaqaysan ama laga faa'iidaysan ama dhabcaalnimo dadka ay ka reebto oo aanay si fiican uga shaqaysan waa sababta koowaad oo markaa ummad ku keenta saboolnimo iyo faqiirnimo midda labaadna waxa weeye dulmiga insaanka ka dhaca waaye oo cadaalad daro ay bulshadaas ku faafto cadaalad daro ilaahay wuxuu amrayaa ina allaha ya'muru bilcadl ya daauudu ina jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tattabici alhawa ilaahay dulmiga waa xaaraantimay marka ummad haddii uu ku faafo dulmi cadaalad daro corruption iyo musuq maasuq xaqa bani aadamkii kale lahaa oo in yar ay cunto ama laqdo ama lunsato maxaan kuu sheegaa ribo khiyaano been iyo isdaba marin bani aadamkii kale uu ku samaynayo waayo waa dulmi cadaalad daro iyo musuq maasuq iyo nidaam xumo iyo iyo waxyaalaha arrimaha la xiriira oo ah xagga bani aadamka wax ka yimaada marka meeshay ku yaraatana bani aadamka hodonnima siyaadisa cadaaladii meeshay ku badato meeshay ku yaraato oo dulmigii ku bato oo musuq maasuqii ku batana dadkii in badan ayaa baahi iyo saboolnimo iyo gaajo u dhimanaysa labadaas sababood ayaa ugu weyn see lagu xaliyaa marka labadaas sababood sababta ah khayraadkii dhulka in laga faa'iidaysan waayey maxaa lagu daaweeyaa cadaalad in la helo oo dulmiga laga baxo oo musuq maasuqa laga baxana maxaa lagu daaweeyaa aan kaliib kale kaga hadalno in sha allahu tacaala ilaahina tawfiiqdiisa hana waafajiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu